waxaan ka howlgalnay saaka Saydheerow Buulo Jadiid Mantaano ila 20 jirow deegaamadaas ayaan ka howlgalnay waxayna ka tirsan yihiin degmada Baydhabo waxayna ka xigaan dhanka waqooyi deegaamadaas oo dhanna way nooga carareen cadowga markay ogaadeen inaan dhaxgalnay oo gudahoodii ku jirno way noo baneeyeen hadda waxa iska hor imaada ma dhicin laakiin annaga ku sugan hadda waayahay deegaanadu waa imisa tira ahaan ha walaalkay waxa waaye tuulooyin yar iyo ceelal iyo war iyo ay cabahayeen oo ay ku noolaayeen oo fara badan weeye laakiin meelaha muhiim ku ah u ahayd Saydheerow kamid ah Buulo Jadiid kamid ah Mantaano ayaa kamid ah 20 jirow ayaa kamid ah 20 jirow beledka ma aanu dhex tagin laakiin waxa uu saarnay way iskaga baxeen wilina kuma aysan soo laaban ayagu waa gartay hadda 20 jirow oo aad ku wajahan tihiin maxaa la idin sheegay ma ku sugan yihiin mise way isaga carareen way iskaga carareen way ka baxeen ha anagu ciidamadii iskood isku abaabulay la magac baxay tulmatiid anagoo ah mar walba waxaan iska rabsanaynay oo isxogsiinaynay oo isku gurmanaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan militariga ayaan wada shaqaynaa hadda anagoo iska rabsanayna way waa gartay maxaa uu yahay ujeedkiina kale ilaa iyo maalmaha soo socda deegaanada aad doonaysaan in la wareegtaan maya walaalayaal maalmaha soo socda leemahan ilaa aanu noolnahay oo cadawna uu deegaankan mise Soomaaliya oo dhan ku sugan yahay gaar ahaan koonfur galbeed ay wax ka joogaan oo rabo inuu dadka ku dhibaateeyo waa la dagaalamayna ilaahay idinkiisa waa gartay dadka deegaanka ee ku sugan ama ku nool deegaanada aad maanta la wareegteen oo argixisada isaga carareen marka la kulanteen maxay idin sheegayaan dadku inay ku dhiban yihiin oo la dhacayo oo la baadayo oo la dhaqaale tirayo abaarta taala cadawga argagixisada ugu daran tahay ayay noo sheegeen ayna u baahan yihiin inay laga dulqaado ayna u taagan yihiin inay xogtoodii dadku nala soo wadaagaan oo ay noo soo sheegaan oo ay nagala shaqeeyaan waxaan kaloo rabay inaan farin u diro bulshada Soomaaliyeed gaar iyo madaxda dawladda tan federaalka waxaan leeyahay sida Hiiraan iyo Galgaduud loo garabsiiyay in loo garabsiiyo cadawga waa baqdin badan yahay wuuna jaban yahay wuu dhabar jeediyay intuu saan yahay in laga faa'iideysto annagana nala soo caawiyo nala soo garab istaago waa farin ku socota madaxda dawladda Soomaaliyeed tan kale shacabka gaar ahaan koonfur galbeed ku nool waxaan leenahay dhibaatadan aad ku sugan tihiin cadawga idinkugu haayo anagu waa fiirsan weynay waxaan leenahay ku buraaraga waan iska dhicino aan u midowno soo kacbaan leeyahay ayaguna fariintaas aan u sheegaya